kusoo dhawow shabakada Sirta Media haddii ay tahay marka kuugu horeysay subscribe saar gambaleelkana furo mahadsanid waa galabnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 11 bisha Abriil sanada 2020 kusoo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media inta aan wararkeena galin asxaab badan ayaa waxay naga codsadeen in aan joojino gabi ahaanba heesta Sirta Media astaantu ah ee wararkeena horudhaca aan ugu dhigno halka qaar kalena ay nagu bogaadiyeen mar waliba waxa qasab ah waxa ay asxaabteena ku qanacsan yihiin in aan sameeyno haddana way nagu adkaatay inaan heeskaasi ka tagno maadaama dad taageerayaal ah oo na jecel ay juhdi iyo waqti bageliyeen waxaan sameeynay codeyn 24 saac oo aan soo dhignay channelkeena qaybta community-ga sidaad aragtaan waxaa codeysay 124 qofood markii percentage ahaan loo fiiriyo 59% waxay isku raaceen in heesta halkii laga sii wado halka 41% ay isku raaceen in gabi ahaanba meesha laga saaray heesta Sirta Media oo bilaa astaan aan ku soo galno waxa batay asxaabtii isku raacday heesta siiwad marka sidaa darteed heesta halkii baan ka sii anbaqaadaynaa maadaama dadka nagu xiran inta ugu badan ay u codeeyeen dadka yar ee heesta dhibsadayna waxaan leenahay inta ay heesta socoto iska gudbiya si aadan u maqlin dhawaqa muusiga intaas haddii aan ugu gudubno bal markan iyo wararkii ugu dambeeyey kadib kulan ay wada qaateen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la soo sheegayaa in arrimo dhowr ah looga arrinsaday Khayre iyo Farmaajo ayaa shirkooda ku soo hadal qaaday 3 qodob oo kala ah amniga doorashada dalka iyo cudurka corona xog laga helay kulanka ayaa waxa ay sheegaysaa in la isku afgartay doorashada in dib loo dhigo iyadoo dagaalka cudurka corona meel looga soo wada jeesanayo 6 bil ayaa hadda ka harsan doorashada 2020-2021 taas oo la leeyahay in dad badan ay u arkaan fursad ay fila Soomaaliya u aragtay dib u dhigista doorashada madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaysa in mucaaradka ka soo horjeeda dawladda ay kaga faa'iideysato kulanna ay la qaadato si looga hadlo xilli cudurkan uu jiro aan doorasho la qaban karin waxaa loo balamay shir kale iyadoo markaan xisbiyada dawladda dhaliila inta badan mucaaradkana ah la casuumi doono walow aan la ogeyn wax laga yeeli doono sida ilo xog ogaal ah ay inoo sheegeen madaxda ugu sareysa dalka ayaa qorsheynaysa inay isugu yeeraan dhammaan saamileyda siyaasadda dalka si looga arinsado xaaladda guud ee dalka iyo faafitaanka cudurka corona oo dalka halis ku ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda wada qorshe isugu yeeraya dhammaan hogaamiyaasha siyaasadeed ee mucaaradka ku ah dawladdiisa si ay meel uga soo wada jeestaan cudurka corona iyo in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira wararka qaar oo aan helayna ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo sidoo kale uu doonayo in uu kala hadlo hogaamiyaasha mucaaradka in dawladda loo ogolaado muddo kororsi si loola tacaalo musiibada dalka ka jirta iyo waliba in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo coda mucaaradka ayaa hore ugu diiday dawladda Farmaajo in ay muddo kororsi samayso isla markaana doorashada lagu qabto waqtigeeda dhanka kale wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cinte ayaa wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ka dalbaday in ay raali gelin buuxda siiso gabdhaha Soomaaliyeed kadib warqad gef ku ah oo ka soo baxday warqadan oo lagu xayeysiiyay shaqooyin ka banaan telefishinka qaranka oo loo doonayo gabdhaha oo kaliya ayaa lagu qoray shuruudo ay dad badani u arkeen takoor iyo aflagaado lagu sameeyay gabdhaha Soomaaliyeed shuruudaha lagu xiray shaqada ayaa waxaa kamid ah inaysan ka weyneyn 25 jir in ay dherer ahaan miisaan ahaan iyo muuqaalba leedahay qaab telefishin in ay leedahay cod warbaahineed iyo hubqaad wanaagsan sida qoraalka loo dhigay inta oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa waxa uu yiri wasaaradda warfaafinta ayaa soo dhejisay 2 fursad shaqo oo gaar loogu qoondeeyay gabdhaha wariyaasha ah balse shuruudaha lagu xiray ayaa fajac ku abuuray inta badan ummadda Soomaaliyeed in ka badan 12 sano ayaan wariye iyo tifaftire ka soo ahaa warbaahinta caalamka ugu waaweyn waligeena ma arag takoor aflagaado iyo akhlaaq darro midaanka weyn kasoo in uu faquuqan ka soo horjeedo mabaadi'da asaasiga ah ee dastuurka dalkeena wuxuu kaloo gaf weyn ku yahay diinteena islaamka iyo dhaqankeena Soomaaliyeed inta ayaa ugu dambeyntii waxa uu yiri wasaaradda warfaafinta waxaa la gudboon inay la noqoto idhehdaan maxaa yeelay waxa ka soo uraya ujeedooyin kale sidoo kale waa inay raali gelin siiso gabdhaha Soomaaliyeed dhanka kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay bandow la sheegay in lagu soo rogi doono magaalada Muqdisho si loo yareeyo faafidda cudurka halista ah ee corona war qoraal ah oo uu ku soo qoray xildhibaanka bartiisa gaarka ah ee Facebook-ga ayuu ku sheegay in Muqdisho ay muddo 3 sano ah la daala dhacaysa jidad xiran iyo curyaamin dhaqaale haatanna aysan ahayn in loogu daro bandow waxa uu sheegay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad in haddii bandow lagu soo rogo caasimadda ay halis aan ka yareen midda cudurka corona ku keeni karto nolosha dadka muruqmaalka magaalada Muqdisho muddo 3 sano ah ayay la daala dhacaysa jidad xiran iyo curyaamin dhaqaale in maanta loogu daro bandow dhinac walba waxay halis aan ka yareen midda cudurka corona ku keeni karta nolosha dadka muruqmaalka ayuu yiri xildhibaanka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ayuu kula taliyay in ay dib ugu laabtaan talaabooyinka noocan oo kala isla markaana lana helo qaab kale oo badqabka shacabka iyo nolosha dadkeena danyarta ah loo wada ilaalin karo intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa ay haatan ina soo gaaray haddii ay ku dhaafeen wararkeena hore ee xiisaha lahaa dib u dhageyso ayagoo rugaal celisa Sirta Media, Sirta
shabakadda sirta media ayaa soo gaaray nuqul ka mid ah wadahadal dhex maray agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha nisa mudane cabdulaahi kulane jismarixaan iyo ruux kale. kulane jismarixaan xilka uu ku magacaaban yahay waxaa u dheer in uu yahay qofka labaad ee ugu awoodda sareeya hay-adda nisa. sida aan aragnay nambarka qoraalka qoray waxaa iska leh cabdulaahi kulane jismarixaan, mana doonayna nambarkiisa in aan hadda halkan idinkugu soo bandhigno annagoo ilaalinayna anshaxa iyo arrimihiisa gaar ahaaneed, balse waxaan ka soo qaadanaynaa keliya inta halista ku ah ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed. qoraaladiisana waa caddeyn ku filan in uu xiriir toos ah la leeyahay kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. horeyna waxaan usoo bandhignay qaybo ka mid ah qoraaladiisa oo laga dhadhansan karay naceebku u qabo qowmiyadaha Hawiye iyo weliba beesha ogaadeen. sidaas darteed cabdulaahi kulane jismarixaan wuxuu khatar ku yahay amniga qaranka iyo badqabka madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, maadaama tiro dhowr jeer uu ku fashilmay isku dayo uu la rabay inuu ku qaarijiyo. madaxweyne Farmaajo ayaa siiyay awood buuxda agaasime kulane, taasoo aysan waxba ka qaban karin taliyaha xukuumadda ee Fahad Yaasiin iyo weliba ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaan soo wadnaa xogo dheeri ah oo muujinaya in kulane jismarixaan uu si toos ah ugu dambeeyo qaraxyo dhowr ah oo lagu dhibaateeyay shacabka gobolka Banaadir, weliba kii ugu dambeeyay ee lagu qabsaday hoteelka Israel. shabakadda sirta media waxay sidoo kale heshay xog ay u soo direen ilo ka tirsan sirdoonka Soomaaliya in uu wada agaasime kulane jismarixaan propaganda isaga baryeelaya sirtiisa banaanka timid. sidoo kale waxaan dib idinkaga soo sheegi doonaa nooca isku day uu sameyn doono kulane jismarixaan iyo siduu u marin habaabiyo indhaha bulshada Soomaaliyeed. dhanka kale waxaa goordhow albaabada la isugu dhuftay cisbitaalka weyn ee Digfaar ee magaalada Muqdisho sabab la xiriira cudurka faafa ee corona, sida ay shabakadda sirta media wax xaqiijiyeen saraakiil dhanka caafimaadka ah ee lagu kalsoon yahay. saraakiisha ayaa sheegay in haatan wixii ka dambeeyay la joojiyay qaabilaadda bukaanada imaan jiray cisbitaalka. sidoo kale waxay intaasi ku dareen inay furan tahay keliya qaybta gurmadka degdega ah ee loogu talagalay dadka dhaawacyada ah iyo haweenka foosha ah. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in xaalad degdeg ah lagu soo rogay cisbitaalka isla markaana la karantiilay dhaqaatiir, shaqaale iyo howlwadeeno ka tirsan cisbitaal Digfaar, kuwaas oo la sheegay in looga shakiyo cudurka halista badan ee corona. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay shaacisay ilaa 9 xaaladood oo cudurka corona oo 3 ka mid ah dadka laga helay ay ka howlgalayeen cisbitaalka Digfaar. cabsida laga qabo faafidda cudurka corona ee Soomaaliya ayaa sii kordhaysa marba marka ka dambeysa, iyadoo dowladda federaalka ay wada dadaalo lagu xakameynayo cudurkaasi. dhanka kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa saacadihii la soo dhaafay howlgal ku gaaray deegaanka Camaara ee gobolka Mudug, halkaas oo ay dhuumaaleysi ku joogaan kooxda Al-Shabaab. taliyaha qaybta 12aad Generaal Cabdixasiis Cabdulaahi Qooje iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa horkacay howlgal qorsheysan ee lagu tagay halkaasi. war ka soo baxay taliska qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in ujeedku uu yahay xaqiijinta amniga gobolka Mudug iyo sidii dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab looga saari lahaa guud ahaan gobolkaasi. taliye Qooje iyo saraakiil la socday ayaa kulan gaar ah la qaatay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu mahadceliyay sida uu soo dhaweeyeen. sidoo kale wuxuu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada amniga si loo xaqiijiyo nabadgelyada deegaanka. gaadiidka dagaalka ee xoogga dalka ayaa si rasmi ah ugu sugan wadooyinka Camaara, waxaana farxad iyo reenreen ku soo dhaweeyay ciidamada. shacabka Camaara oo muddo sugayay tilaabadan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska qaybta 12aad. warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda kuna gaari doonaan tuulooyinka hoos yimaada Camaara. taliska qaybta 12aad ayaa qorsheynaya muddooyinkanba howlgallada argagixisada looga saarayo deegaanada ay ku dhuumaaleysanayaan ee Galmudug, waana tilaabo qayb ka ah qorshaha ciidamada dowladda ay ku wiiqayaan awoodda kooxda Al-Shabaab ee haatan sii daciifaysa. ayaa mar kale lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay taliska qaybta 12aad. xaaladda ayaa hadda ah mid yara kacsan, waxaana dadka deegaanka ay cabsi xooggan ka muujinayaan in dagaal uu ka dhaco halkaasi. guud ahaan intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda sirta media. wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda sirta media. Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Waagii baryaba wixii sirta media, sirta media. Sirta media, sirta media. Waagii baryaba wixii